حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل. qofka hadday gasho rumaysto inuu ilaahay u arkayo, waxa kale oo dhami way hagaagaan. waxay culamada taariikh wariyaan cumar bin اlkhadaab waktigii uu amiirulmu'miniinka ahaa buu habeenkii intuu ninka haysto ayuu wuxuu soo mari jiray xaafadaha iyo dadka oo wuxuu eegi jiray bal cid cabanaysa wax dhiboo jira kormeer. habeen buu soo socday, dabeetana wuxuu maqlay xaafad inan iyo hooyadeeda wada hadlaya. islaantaa waxay tidhi nacaanihii biyaa ma ku dartay? nacaanihii suuqa aroorta la geynayey ayay islaantu rabtaa in la badxo biyo lagu daro. markaase inantay waxay tidhi hooye cumar baa mamnuucay oo yidhi lama ogola caanaha in biyo lagu daro. islaantii baa waxay tidhi ina amiir اlmuuminiina laa yaraaka laan laa yaraaki اlآan. amiirulmu'miniinku dee hadda ku arki maayee tire shaqada inoo qabo. amiirulmu'miniinku hadda ina arki maayee shaqada qabo bay tihi. inantii baa waxay tidhi ida kaana amiiru اlmu'miniina laa yaraana faina rabu amiiru اlmu'miniina yaraana. haddaan madaxweynuhu ina arkaynin amiirulmu'miniinka rabbigii baa ina arkaya bay tihi. ilaahay baa ina arkaya. sidaa awgeed ma suurtagala bay tidhi inaan markuu amiirulmu'miniinku ama ilaahay marka dadku joogaanna inaan ateeco, markaan keli u baxana inaan caasiya. suurtagal maaha. marka dadku ay arkayaanna inaan ilaahay ka cabsado aanan caanaa badxin, marka aan gaar u baxana inaan wax badxaa suurtagal maaha. waxay yidhaahdaan cumar baa guriga albaabkiisii buu calaamadiyey, dabeetana waraysi buu doonay. wareerkaasi waa kuwama reerkii baa loo sheegay, inantii baa looga warramay. inantaa miyaa la qabaa? may. inamadiisiiba isugu yeedhay. dabeetana wuxuu uhi waryaadhe anigu nin weynoo da-aano hadda dumar warkood ma hadal hayo, laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inan ilaahay ka cabsanaysee warardoo taa guursada. inamadiisii mid ka mida baa guursaday. waxay idhahdaan waa cidduu ka tafiirmay bay dhahaan cumar bin cabdilcaziiz, amiirulmu'miniinkii cadaaladda badnaa ee iyaga ka dambeeyey. waa tafiirtii gabadhaa yar baa la idhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayey cumar ibn khadaab. waxaynu uga dan leenahay haddii uu qofku ilaahay cabsidiisu ku waaweynaato oo uu cibaadadiisa ixsaan ula yimaado, cibaadadaasa waxay keensanaysaa inay xumaha kaloo dhan ka reebto. iyadaa keensanaysa. hadday salaadiisu dhab noqoto uu rabbigii habeenkii ku xidhmo. waxay idhahdaan markii wakhtiyadii hore nin baa ayaa qolo saxaaba yidhahdaa ninka hebel habeenkiina salaaduu tukadaa, maalintiina waxbuu yaro qaadqaadaa. nebigoo maqlaya calayh isalaatu wasalaam. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sidaa aad sheegaysaan hadday jirto ina salaatuhu satanhaaha buu nebigu yidhi, salaadiisaa ka reebi doonta. yacni war kale uma baahna. hadduu nin habeenkii intuu istaagan yahay oo rabbigii ku xidhma, dabeecada noocaasi ah inuu rabbigii ku xidhan yahay iyadaa samayn doonta buu nebigu leeyay inay noloshiisa kantaroosho oo gacantiisa kantaroosho u qof dhowr soo noqdo. daba ayuha alaxiba, waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaan ilaahay ku xidhma. ku xidhnaantaynu ilaahay ku xidhanayna xidhnaan dhandhan samaynaysa aan ku xidhnaano. inay cibaadadaynu samaynayna ay noqoto cibaado macno samaynaysa. cibaado aad dareemayso rabu الsamaawaati wاlard biyadihi اlmulk wa huwa calaa kuli shayin qadiir, inaad ku xidhanto la hadlayso. maanta hadday wax yara ku qabsadaan dadku waxaa laga yaabaa inuu cararo markiiba ka fekero wartalow yaa igu dhowaanu tagaa, saaxiib qaraabo tol ya waxaba albaab ka dhow baa jira. haddaad barato albaab haniya oo wax waliba agtiisa yaalinoo ka dhow baa jira. waa intaad habeenkii istaagta inaad rabbiga baridid oo tukatid.
albaabka ilaahay baa ka basharka ka dhow laakiin maadaama maadiyaadku inagu tiro bateen akhiiran waxaynu noqonnay dad asbaabtuun ictimaado unoo sababtu ay u muuqato laakiin rabu الsamaawaati walardi musabibu lasbaabka baanu inoo muuqanin sababtaba ilaaha fudaydiya idan haddaynu rabno noloshan adduun inay fududaato dadka marka la yidhahdo cibaadaysto caynkan waxay ka fakeraan unoo is idhaahdaan dee aakhira loo jeedaa inay ku anfacdo war aakhira uma jeedno tan bay ku anfacaysaa tan aynu joogno aynu rabnaa wixii hagaajin lahaa nolosheenna inay nolosheennan adduunyo shaqadeennu aqoonteennu cilmigeennu caafimaadkeennu tacliinteennu dadnimadeennu inay hagaagtaynu rabnaa waxaynu leenahay waxay ku hagaagaysaa markaynu xidhiidhkeennu ilaahay la leenahay uu qurux badnaado markaynu gaadhno xad ducadeenna rabbi aqbalo markaynu gaadhno xad waxaynu doonayno inuu ilaahay weydiisano xad aynu basharkaba ka maarmi karno oo alunsu maca allaahi gaadhno inaynu ilaahay u heshanno oo markaad qur-aanka akrinaysa uu dhadhan kuu sameeyo kuu macaanaado oo markaad salaad tukanaysa uu kuu macaanaato oo markaad wardinaysa ay kuu macaanaato oo cibaadaadku dhadhan kuu sameeyaan oo xumuhu kala qadhaadhaado xumuhu iyo xanta iyo warka torrogta iyo beenta iyo waxaan adduun iyo aakhira toona wax ka tarin dadku inta badan wuxuu wadaa kuwa psychologiga waxay idhahdaan marar badan baan bini aadamku caqligiisa isticmaalin bay idhaahdaan ee bulshada iyo dadka iyo waxaan u arkay iyo waxa uu iskaga dhaqmaa waayo hadduu caqliga isticmaali lahaa bay leeyihin wax badan muu sameeyeen inaan dadku caqliga isticmaalin miyaa u baahantihin proof soo dadku sigaarka ma cabo muxuu taraa cid tidhi sigaar baa wax tarta miya maqasheen mid caalima mid culamaa mid saynisyahana mid cid tidhi sigaar baa faa'iida le ma maqasheen maya waxyeelle ma leeyihi dee kuwa soo sameeyaa dusha kaga qoray sigaarka dushiisa maxaa ku qoran war waa khatare ha isku cabin waxaa laga qaadaa kansar iyo waxaase waa khatare ha cabin baa ku dul qoran dushiisa ku qorantay ka warra adigoo arkaya haddii lagu idhaho caagada tani war waa suna ha isku cabin aad tidhaha may iska yaro qurqurinaya caqligu miyuu jiraa mise ma jiro yani caqliga lama isticmaalin idan bini aadamkan aad arkaysaa marar badan buu isagoo caqligiisa qaba uu diidaa inuu isticmaalo oo naftiisa iyo shahwaatu nafsiya waxay iska doondoonayso kale uu isticmaalayo maala khamri aadanahoo dham wuxuu rumaysayay one of the poisonous waxyaabaa ugu boysinsan dunida inuu ka mid yahay alcoholku waa poison waxba ma taro haddana waddanada aleedin horay u mareen waxay idhahdeen laba habeen dadku way fasaxayiin inay waashaan shanacshana waa la shaqeeyaa labana waa la waalaadaa waddanka in yaroo ilaalisaa looga tagaa oo la yidhaahdo iyagu gaadhkay ku jiraan iyo waxaasay ku jiraan intaasaa waddanka o dhan ilaalinaysaa waddanka intiisa kale maxay labada habeen u fasaxiyeen inay waashaan ka warran dad dhan oo isku waafaqay ummadda intay ugu badanay laba habeen ha waalato in yarina hama yar qabto waddanka ha ilaaliso yani ma caqligaa la isticmaalay waxaan uga dan leeyahay war diintan iyo cibaadaadkan haddaa si dhaba u raacdaan caqligiinaa ifi doona caqligiinaa noqon doona ku garta maxaa wanaaga maxaa xuma ah qur-aanka iyo diintana akhriyaysaa baa dhadhan idiin samayn doonta marka waxaad macaansan doontaa oo dhadhan kuu samaynaysaa ilaahay ariiqiisan inaad hayso aakhirana kulama sugayse inaad dunida tan ilaahay uu abwaabteeda kuugu furo qanaaco kugu siiyo waxaad heshaad ku qanacdo noloshana ay kuu macaanaato samaysmayaan idan waxaan leenahay alixsaan fi اlcibaada ixsaanka kale laga warramo oo dhan isagaa fura u ah waalid ha loo samafalo jaar ha loo samafalo asagoon ha loo samafalo masaakiina waxaasoo dhan waxa fura u ah kani hadduu hagaago xidhiidhkaynu ilaahay la leenay subxaanaه wa tacaala oo nebigu markii la weydiiyey uu ku tilmaamay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak salى اllahuma calى nabiyina mxamedi wعalى alih وصaxbi waslm walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ilahay jidka quman haynugu hanuuniyo